jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee Somaliland iyo kulmiye iyo labada mucaaradka ah ee u codiya wadani ayaa maanta ku kala kacay wadahadal ay ku gorfaynayeen sidii loo dhaqan gelin lahaa taladii ay hore u soo jeediyeen guddidii dhexdhexaadinta ee khilaafka dhex yaallay xisbiyadu ay ka odeeyeen ee qodobada ay ka soo saareen. Xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay inay isku afgaran waayeen sidii arrintaa loo dhaqan gelin lahaa. Wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad ayaa haddaba shirkaas markii ay ku kala kaceen xisbiyada iyo madaxdooduba waxa uu helay oo uu waraysi la yeeshay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe oo uu weydiiyay bal hadda halka sartu ka quruntay. maanta 13 shir ayaa maanta ma kaan sameynay waxaanu waramade waqtigii waa dhamaaday maxaa qabateen intii muddada qabsateen madaxweyne waxaanu qabanay ma jirto arrintu way nagala balaaratay waxaan idin qarinaa inaan magaranaysaa guddidaasi aanay guddi qaban karta ahayn marka laga eego xagga tayada iyo xagga experience way aragnimada way daqaad go'aankina waanu qaadanay laakiin sharci ma hayno sharci nasiya sharci ma hayno marka maxay ka dhigantay macnaheedu sharci ku kala jiro ma hayno waxaanu marka caawiyo saan ku caawinayo loo tago reerahoodii waxaan aqli kelma waxaad ma jirtay madaxweyne adiga haye arrintii u yeero xataa is-asila wax kala farsamay sida hore loo sameeyo madaxweyne hore iga geysana markaanu geesimay buu halkaas istaagay madaxweyne Faruuq taagay arrintii go'aankii waan ogolay mana ogolay isku dhex jira way macnii ogolay afka laakiin ficil ahaan marka idinka waad ka timaadeen warbaahintan waad la hadasheen maxaa idinka idin xiga go'aan iyo talaabo waanu ku isku noqonaynaa insha Allah taala guddidiina waanu wargelinna laakiin uu Faysal iyo xisbaha waxa la arrintu taag ka weyn tahay dalku badbaado u baahan yahay موصلبيت لما صارنا وهي دلك وحمقات دلك إنه صار أوروري هرينا كصار أوروري جودينا وكفر فمية ما يشوف دنكو خلاص وحن شرعيهن الناقم ولا مسلم قف شرعي كم يسوقاته معها فقالوا وحن شعلها إن شاء الله تعالى صوت شيء ما كانوا حسبوي مادان ودياش أنا صوت شيء ما كان معدنه إنشر بعد قرن على الصمية أنا مدون إنه أنا في 20 areas اللي بتسمعينه السوبالات بربرتو oo wax misqaal darada ku barbarto oo qof awood ku barbarto madaxweynaha ku barbarto waxa jirta in mas'uul ka tirsan xisbigaagu ilaa imika uu xiran yahay ma ka wada hadasheen maxaa ka soconaya ee xal ah sidee baad soo aragtaa xariga siyaasiyiinta habeen hore ka wada hadalnay madaxweynaha oo yidhi ninkan maxaad u haysataa inaan intaas la iskriis gareeyay markaan shalay tahay war soo daamada ninkan wixii waa siidigay ii dhaaf arumaha siidigay soo dhaxgalbiyo waxaan door wax xoqayahaygii dibadda wixii waxyaalahaas isku haysan ay dhaafsi digay marxaatiyaas la fadhiyo waxa jirtay warar sheegay in adiga laftigaaga dacwad laga gudbiyay inkasta oo aan maqlay inaad ka wada hadasheen oo ka heshiiseen anu madax imay soo galay dacwadaas laakiin wax ka xun bay ugu sameeyay madaxweynaha uu la dagaalamay 27 bisha aan qarinay dalka dantiisa ku ilaalinay malaw maqal xafiiskiisu kula dagaalamay hooyadina caay inta igu soo toray dhalo hooyada waxa ku sameeyay wiiri laadna kula soo orday laakiin waxa la yaan sheegin laakiin hadda waa sheegin maxaad markaa keenay inaad isku dhacdaan ama gacan isku qaadaan arrinta waxa isku keenay ninka laakiin ama la yiraahdo ramax waaran baa la soo jaray wixii waa sharci waxaan sharci ma hadda aynkaas noqoto dawladda inuu isdaafacnaa marka idinka waxa tihiin xisbiyadii mucaaradka ee la xisaabtami lahaa dawladda ee loo irkan lahaa baa tihiin dhaliisha dawladda maaragtay ee indhaha ku hayn lahaa lagu xisaabtamayay inay bedelaan maxaa marka idinka idin meel yaala maxaa idin qorshaysan rasmiye la idinkaga talagali karaa waxa weeyaan madaxweyne ma ogola in la xisaabtamo in la taliyo in la shaqeeyo in la karisaas gareeyo wax laga sheego ma ogola madaxweyne حاجز وين استلو أنا ما بدون ذلك مرة مدار سوي كذا تمانتا أنا عندنا نقضو وورلورد ومدياره ما كترنا نسكون قلنا وترى رئيس المال بتني تاجنتاي
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faysal Cali Waraabe ayuu kaasi ahaa. waxaase dhageystayaal naga xasuusina in eedaynta uu sheegay injineer Faysal aanan ilaa haatan wax cadayna u haynin, walina aanu ku daba jirno in aanu xog buuxda ka helno iyo waxay ka oranayaan xafiiska warfaafinta ee madaxweynaha Soomaaliland oo aan ilaa haatan xiriirku noo socdo. haddase aanan ilaa haatan wax jawaab ka haynin. haddii aanu wax jawaab ka helnana intaanu idaacada ku jirno waanu idin soo gudbin doonaa haddii Allah awood leeyahay. waa tay wali wararkii arrimaha Soomaaliland ayaynu dhageystayaal ku jirnay. waxa haddaba iyaguna dhinacooda qaba aragtida ka duwan xisbul xaakimka kulmiye oo sheegay in xisbigoodu qodobadii ergadu soo saareen iyada khuseeya ay mucaaradku doonayaan in la hirgeliyo. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbigaas Axmed Cabdi Dheere ayaa isna waxa uu la hadlay isla Sidiiq Burmad. go'aan odayaashu ay soo saareen wuxuu ahaa 5 qodob. 2 qodob oo kamid ah ayuunbaa imika aynu ka hadlaynaa oo ah kuwa komishankan cusub iyo komishankii hore quseeya. go'aankay soo saareenna wuxuu ahaa inaanu qaadanay 3 xusbi baanu qaadanay. wuxuu ahaa markaan 2 qodob soo qaado in la kala diro komishanka cusub iyadoo sharciga loo raacayo, in la soo celiyo komishankii hore iyadoo sharciga loo raacayo. marka inaan iska taago intaan sharciga loo raacayo intaan iska reebo inaan idhaahdo hal la kala diro de meesha ma qabato. waxaanu leenahay haddaan xisbiga kulmiye nahay maantana kumaanu kala kicin oo de maanu oranin waxba kama qaban kara. maanu oran war 3 xusbi aynu meeshii haddaynaan haynin qodob sharci oo lagu kala diro, haddaynaan haynin aynu 3 xusbi intaanu isla baxno wixii aqoonyahan ee kalena u yeedhano, had ciddaynu u baahanayna kalena u yeedhano, aynu isla soo bahabahayno, aynu sulux hadday tahay sulux meeshaynu ka doon lahayn keenno dabeedna madaxweyne aynu kula soo noqonna bay ahayd. iyo ma samaynayna madaxweynuhu kala diro. madaxweynaha kala dirista kamaanu sugayno sharci uma laha inuu kala diro. imakadana waxaanu diyaarunahay haddaanu xusbiga kulmiye nahay inaanu 3 xusbi ka wada hadallo sidii ay wax noogu suurtageli lahaayeen. laakiin waxaa jirtay dee inaad hore u aqbasheen kala dirkan iyo qodobadii ay ku jirtayba oo aad soo dhaweyseen qodobada guud ahaan ay soo saareen. hadda fulintii unbaa laydinka sugayay soo maaha? qodobada aanu qaadanay waxay ahaayeen sidaan mar labaad haddana haddaan kuugu celiyo iyada oo sharciga loo raacayo. laakiin dee maad sharcigii u raacdaan idinkiiba xisbigii xukuumadda iyo xukuumaddiiba haba yaraatee sharcigii waxaanu ka weynay oo aan jirin qodob lagu kala diri karo. ta ay ku soo ururtay waxa weeyaan xisbiyada mucaaradkina way ogyihiin ma hayna bay dhaheen sharcina uma lihidin inaad kala dirtaan. marka macnaheedu waxa weeye qodobkii ay soo jeediyeen odayaashii hawsha galay la aqbalay sharci baa loo waayay. marka iyagii maxaad ugu noqon weydeenoo ergoy wixii aad noo keenteen sharci uma hayno aad oran weydeen? sheekadii waxay ku soo ururtay sulux aynu gallo, sharci uma hayno. qof oranayo reer Soomaaliland oo joogo sharciyada hadda yaqaano oo oranaya sharcigaas lagu kala diri karaa ma jiro. horena uma dhicin. hore waxa uu dhacday komishan la kala diray oo isqabsaday. komishankanu shaqo ma ay qaban waxa lagu kala diro oo maanta la yiraahdo waxaas lagu kala diraya ma taalo ismay casilin. waxa lagu qanciyay komishanka hore markay 3 jeer isqabsadeen inay iscasilaan baa lagu qanciyay. sharci lagu kala diro madaxweynaha horena muu kala dirin. madaxweynahan maantuna ma kala diri karo. haddii ay ka baxayaan meeshana waxa kaliya ku dhici kartaa inay iyagu iscasilaan. marka iyagu inay iscasilaan maxaa looga dalban waayay? waayo xubnuhu waxay u badan yihiin baa kuwii madaxweynuhu keenay iyo kuwii golayaasha kala keeneen. maslaxadna waa la raadinayaa. miyaa laga dalbado oo tiraahdaan ilaa kuwii mucaaradku waliba wadani kumaba jiree wanima yahow iscasila? ta aanu leenahay waa sulxa. kelmadaan ka hadlayo sulxa waa taa annagoo xusbiga kulmiye ah iyo annagoo xusbiga iyo xusbiyada mucaaradka intay isu yimaadaan ciddii kale u yeeranayaan wixii sulxa diyaar baanu nahay annagu inaanu ka qayb qaadano wixii sulxa lagu dhamaynayo. laakiin xaqna uguma lihin ninkaad shalta soo qortay sharci u yaalo siday u dhigeen odayaasha laftigeedu iyadoo sharciga loo raacayay bay yiraahdeen may oran hal kala diro. madaxweynuhu wuxuu hore u sheegay in la sugay ilaa 10 bisha oo balanteediina maanta ay noqotay si hawshan loo soo gabagabeeyo. taasoo macnaheega loo qaatay oo la filayay in kala dirkii komishanka ay tahay oo de wixii loo ballansanaabaan uu intaa ugu weyneedba. marka maanta markay tan oo kala dhacday xisbiyadii waxay leeyihiin arrin kasta oo lagu murmo madaxweynuhu wuxuu leeyahay sharci uma hayo. horena way u dhacday qodobo noocaas oo kala waxay leeyihiin ma markuu doono ayuunbuu soo qaadanaya. mar walba madaxweynuhu wuxuu u dhaartay inuu ilaaliyo sharciga. waanu ku saxsan yahay inuu yiraahdo sharci ma u haysaan hal qodob hadduu hayana intan bay may soo qaadateen iyagu hadday hayaana ha keenaan.
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayuu kaasi ahaa waxa uu warramay